waa shabeel ku nool dhul buuraley oo qurux badan halkaas oo daadeg hoose ah xayawaankuna ku badan yahay. waxaynu u kurgalaynaa mid kamid ah shabeellada oo noloshiisa ay hareeyeen khilaafaad uu la geliyo dhurwaaga iyo xayawaano kale oo ay daris wadaag yihiin kuwaas oo had iyo jeer raqdiisa kula loolama kuna qabsanaya. tijaabooyinku waa u joogto boobka rafaadka iyo weerarkuna waa mid aan dhammaan ahayn. libaaxyadu qayb ayay ka yihiin dhurwaaguna saacad kaliya kama dul dhaqaaqo. midkani waxaa lagu magacaabaa jololo waana mid kaligii inta badan waxaan ugu yeedhnaa kaligii noole. waxaa halkan inooga ulkamaysaa bilowna inoo taagan sheekada midkan shabeelka ee jololo midkaas oo isagu kaliya halkani ku nool isna difaacaya. aragtida shabeellada mararka qaarkood way adag tahay inaad habeenka aragto. midkan labka ee shabeelka ee u halgamaya noloshiisa inuu samato bixiyo siina noolaado inta badan habeenkii waxa uu figta sare uga baxaa geedaha halkaas u hoydo. habeenadii mararka qaarkood shabeelku waa uu ugaadhsanayaa. waa habeenkii inta niska hore ay tahay. waa mid awood badan run ahaantiina waxaad si life u arkaysaa markaad dhex joogto xayawaanaadka waxyaabo cajiiba oo mararka qaar aan ku soo dhacahaynba maskaxdaada. markay tahay mugdiga shabeelku waa waqtiyada ugu jecel yahay indhihiisuna si wanaagsan ay wax u qaban karaan. marka uu kuurgalayo oo gaadayo xayawaanaadka shabeelku xataa waxaad moodaysaa waxa ku soo dhacaya maskaxdiisa inaad garanayso. waxaad ka filaysaa meel walba shabeelka markay noqoto marka uu gaadhsanayo iyo ugaadhiisa sida biyaha ayaa meel walba qulqulaya isagoo aan samaynahayn sanqadh badan oo sanqadh tiranaya. waa mid isku baabiinaya dhulka. shabeelku waxa uu ku dhuumanayaa geedaha midka ugu gaaban waa burka hiisha ama burka cawska balse waxaa ku lamaan dhurwaa. waa mid aan jeclayn inuu isagu tabco inuu ugaadhsado ma doonayo uu rafaad maro. waxaa doonayaa inuu ka xado midda kan raqda isla mar ahaantaasina markasta ku soo gashay si adag. dhurwaagu midkan waa uu ka helay had iyo jeer haddii uu weerar yahay hadduu raqaystaba waxa uu doonayaa inuu ka faa'iido. waa midkaas taanta u ah hunguri xumada
waxaa sidoo kale lagu xantaa qorshe xumo. maadaama uu inta badan deegaan wadaag leeyahay shabeelku dhurwaaga, labadana way suurran yihiin marka uu ugaadhsanayo iyo haddii uu raqaystaba. dhurwaagu waa mid daba taagan, dabadiisana ka qadhaabanaya midkan. marka la joogo halkan waa inaad barato cadowgaaga, haddii kale si fudud ayaad gacan kale ugu dhimanaysaa. Maalamala Game Reserve ayaa lagu magacaabaa waqooyi bari dalka South Africa ayay ku taallaa. sidoo kalena waa 38 kiiloomitir oo isku wareega. waa meel ku habboon nolosha shabeelka. waxay leedahay geedo dhaadheer oo la fuuli karo raqdiisa iyo naftiisaba. sidoo kalena waa dhul daaqsimeed. waa meel daaq badan, geedo dhaadheer leh, sidoo kalena green ah sanadka oo dhan. mararka qaarkood halkan xayawaanaad badan ayay daris ku leeyihiin shabeelladu. waxaa ka mid ah dameer farowga halkan muddo dheer ku noolaa. inta badan walow aanu ugaadhsan shabeelku, haddana waxay halkani ku yihiin qaar daris wadaaga, kuwaas oo isha iyo aragtidaba iskala socda. xayawaanaadku ugu jecel yahay shabeelku inuu ugaadhsado had iyo jeer kuma jiraan dameer farowgu, balse waxaa kaalmaha koobaad ka soo galaysaa kuwa miisaankoodu aanu aadka u badnayn ee lagu magacaabo garanuugta. halkan waxaad ku arkaysaa waxyaabo badan markaad u joogto si toosa, isla mar ahaantaasna xirfadiisu way koraysaa sanadba sanadka ka dambaysa. muddo 5 sano kadib midkan halkan xirfadiisa ugaadhsigu koraya u kaceen, sidoo kalena halkan ayaa ku soo bandhigayaa. waxaa la tiyaaraa daanyeerka, midkaas oo kaga qayliya ugaadha. isla marka uu bilaabo jololo ugaadhsi ayaa u qaylinayaa daanyeerku, waana ka didanayaa ugaadha. sanado yaroon ka hor midkan waxaa soo gaadhay dhaawac. halkani waa halka uu ku baxsaday ee naftiisa iyo dhaawiciisaba uu ku dabiibay. halkan geedka dushiisa ayaa fuuli jiray marka uu nafta u yaabo. waa jololo, waa 4 jir, miisaankiisu waa 150 pound. sidoo kalena khibrad badan ayaa u baahan yahay halkan marka la joogo nolosheeda. shaqadiisa ugu horeysa jololo waa inuu helo xad uu isagu iska leeyahay oo aan cid kale ku safaadin. halkan waxaa ka dhintay mid laba oo shabeela. waa 14 kiiloomitir oo isku wareega. waqtiyeyntiisu jololo waa mid ugu saxsaneed haatan.